السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waan idin salaamay soomaali weyn meel aad joogtaan ma dhammaantiin aad iyo aad badan waxaan idin rajeynayaa cimri dheer caafimaad insha allahu tacaala iyo bil wanaagsan bisha ramadaan ilaahay khayraadkeeda hayna siiyo acmaasheedana haynaga aqbalo. caawa waxaan ka hadlaynaa mowduucan adduunka wareeriyey ee loo yaqaano ama la yidhaahdo corona ama covid-19. waxaan ka hadlayaa laba maadadood oo muhiim ah oo aanu ka bilaabayno marka hore cilaajkeeda iyo ka hortageeda. waxaan ugu dambaysiinaynaa sida looga badbaadi karo cudurkaas qofka inaanu magaranaysa uu afood galayo ama uu ka badbaado. marka ugu horeysa intaynaan gudagelin arrinta coronavirus waxaynu doonaynaa inaan ka hadalno arrin muhiim ah oo ku leh xidhiidh mubaashir ah ama toos ah oo la dirsaa cudurkan ama cudurrada in general. cudurkan oo ka mid a virusyada loo yaqaano corona ama af carabiga virusaat taajiya. waxaan ka hadlaynaa arrin wax la yidhaahdo loo yaqaano cilmiyan ph waxa weeye waxa dareeraha ah waxa la xidhiidha waxa lagu qiyaasa wax la yidhahdo ph. okay, waa maxay ph ku waxa weeye inuu ama dhanaan yahay oo af ingiriiska salt loo yaqaano, af carabiga noo yaqaano xumuuda ama muluuxa, ama uu yahay wax adag oo caks ku ah oo af carabiga loo yaqaano qalawi, af ingiriisiga loo yaqaano alkalic. marka af soomaaligu waxa weeye sida biyaha oo kale markaynu aynu dhadhamino biyuhu ama waa biyo xareed ah, waa biyo macaan ama waa biyo dhanaan. biyo kalaa jira oo aynu u naqaano biyo adag ama biyaha wiyeerka ay u yaqaanaan soomaalidu dadkana dee magaranaysaa soomaaliya. marka qiyaastaas waxa uu ka bilaabaa zero eber ilaa iyo darajada 14. marka biyaha caadiga ah ee la cabo waxay yimaadaan number 7 halka uu dhiigga dadku yimaado number 8. marka aad 7 taagan tahay haddaad dhinaca u dhaadhacdid 6 iyo yani 5 iyo 6 5 iyo 4 iyo 3 iyo 2 iyo haddaad dhinaca ibirka u socotid dareeraha dhanaankiisu wuu kacaa. macnaha wuxuu noqonayaa liin dhanaan, wuxuu noqonayaa milix, wuxuu noqonayaa inkaas uu sii soconaya ilaa iyo uu ibirka tago. haddii aad xaggan u socotid 7ka haddaad xagga usoo dhaaftid oo aad 8 iyo 9 iyo 10 iyo 11 aad sii socotidna dhanaanku wuu ka yaraanayaa, waxaa soo baxaya qaybtan ee la yidhaahdo qalawiga. marka dhiigga dadku halka uu ka joogo 8 number 8 buu ka yahay. marka dhiigu marka ay biyuhu ay ka yihiin 7ku marka waa balance, dhanaanna maaha, adayg wiyeerana maaha, sweetna maaha. okay, waxaa markaa aynu ogaanaa qaacidad odhanaysa dhiigga dadku maadaama uu dareeraha ka mid yahay uu number 8 uu yahay, mar kasta oo uu dhinaca dhanaanka usii dhaadhacayo mar kasta wuxuu sii noqonayaa meel u wanaagsan inay ku tarmaan cudurrada aadamiga ku dhaca oo dhan. wax allaale wixii cudur bani aadamka ku dhaca waxay ku tarmaan halka dhanaanku marka uu dhiigga uu dhinaca dhanaanka uu ku bato ay acid uu noqdo. cudurro badan oo aan la tira koobi karin, ciidda iyo carrada ka badan oo marka aanu soo darisno aanu ogaanay inuu yahay dhiigga dhanaankiisa uu sababo. marka ay dhanaanku ku kordho dhiigga uu ku bato oo uu ka dhaadhaco qaybaha aan idin sheegnay ee uu 7 iyo 6 iyo 5 markuu xaggaa usoo dhaadhaco, macnaha waxa ka labada maadadood ee dhiigga controla ph-kiisa waxa weeye maadada loo yaqaano sodium iyo maadada loo yaqaano potassium. labada macdan marka uu ka yaraado potassium ku dhiigu dhanaan buu noqdaa, marka uu ku batana wuxuu noqdaa alkalic, wuxuu noqdaa qalawi.
wuu ka yaraadaa dhanaanku. marka mar kasta oo uu dhiiggaaga dhanaanku ku yar yahay caafimaad baad dareemaysaa, cuduradana waad ka hortegi kartaa, awood weyn baad u leedahay difaaca jirka. waxaan la yidhahdo synergist ee la yidhahdo ta'thiir tacaawuni fi camali cudurada ka hortaga jirka iyo waxa uu sameeyo. marka ay dhanaanka dhiigu ku kordho waxaa kaca waxaa la dareemaa inaad dareentid daal badan iyo leysinimo, hurdadaadu way gogo'daa, calool adayg baa isku aragtaa. wuxuu ku leeyahay dhanaanka dhiigu waxa aynu u naqaano xanuunka xameytida iyo dhagxaanta nooc kasta ay noqoto oo xameytida gala ama kaajaysta gala ama keliyaha gala, wuxuu ku leeyahay si mubaashira dhanaanka dhiigga marka uu kaco. waa dhidid badan baad isku aragtaa haddii uu dhiiggaagu uu dhanaanku ku badan yahay. finan baa laga yaabaa inay jirkaa kasoo baxaan. waxaan dawaaliga loo yaqaano magaranaysaa xididadan dhiigga ku urura ee halka xaglaha iyo dadka ka baxa, dadka magaranaysaa dawaali loo yaqaano. awooddaada way yaraataa. marmarka qaarkood dhiigga dhanaankiisu hadduu bato wax laga yaabaa inaad miisaankaaga luusgaraysid oo miisaanku aad kaaga dhaco ama inuu aad kuugu saayido. neerfaska iyo casabiyadda badan waxaa u sababa dhiigga dhanaanka badan leh. marmarka qaarkood qof baad arkaysaa iska murugaysan oo aad wahabsaaran yahay. wax laga yaabaa iyo inuu macnaha qofkaasi uu ilowshiya bato. carabkaaga ama afkaaga ayaad had iyo jeeraale ama dhanaan ama qadhaadh ayaad ka dareemaysaa. ilkaha qaarkood ayaa wuxuu sameeyaa suus buu sameeyaa ama way jajabaan. caloosha cudurada gale ee iltihaabaadka infectionka caloosha lug buu ku leeyahay. calool socodka lug buu ku leeyahay. marka aad kaadida iyo marka ay kulayl aad dareemaysid markaad kaadida. dadkan had iyo jeeraale hargabka ku dhaco. qof baa jira every season mar kasta haddii qabow jiro iyo haddii kulayl jiro mar walba hargab buu qabaa, mar walba waa hindhisayaa, mar walba waa qufaacaya, kamama baxoba. hargabka wax la yihahdo waaba la deris. maxaa u sababa? waa inaad ogaataan waxa weeye dhanaanka dhiigga. infection ku dhaca cunaha, xoqadaha, sanka, magaranaysaa waa iyaguna waxay lug ku leeyihiin mubaashira dhanaanka inuu kaco dhanaanka dhiigu. xataa waxaa jira waxyaabo badan oo ku saabsan adhaxda iyo dhabarka. halkaa duburta dambe dadka diska kuleh ee uu magaranaysaa mafaasilka ama xubnaha laabma ay dhibaato uga yimaadaan, waxaa lug ku leh dhiigga dhanaankiisa. laabka ruugaga cudurada ku dhaca ee la yidhaahdo magaranaysaa mafaasilka hoose ee ruugaga qofka ku dhaca, iyaduna waxaa sababa dhanaanka dhiigga. waxaan dhiigga ku dhaca ee loo yaqaano low pressure-ka ama hubuudka, iyada laftigeesu waxay ku leedahay lug bay ku leedahay dhanaanka dhiigga. okay, maxaa dhanaanka dhiigga? waa marka uu kaco nisbadda loogu talagalay ee sodiumka. marka haddii uu sodiumku kaco waa inaad cuntooyinka sameeya inuu potassiumku kaco oo lagu dalaco ayaa la cunaa. cuntooyinkaas wax yar baan idinka taabanayaa. waa inaad cuntooyinkaas aad ilaalisaan. waayo waxaanu usoo noqonaynaa hawshan aan hadda ka sheekeynayo iyo xidhiidhka u dhexeeya coronavirus. okay, waxaa bhka horta bhka waxaa rafici kara ama dalici kara ama kicin kara baradhada, tan macaan iyo tan caadigaba ah. waxaa kicin karaa geedka loo yaqaano broccoliga, geedka loo yaqaano muuska oo ilaahay inagu manaystay, kalluunka loo yaqaano salamonka, orange juice-ka, bahalka loo yaqaano afogaatada, caanaha oo dhan, geedka loo yaqaano jarjiirka, faasuliyada cas iyo geedka loo yaqaano spanish ama sabanikh. waxaa kale oo aad u baahan tahay inaad kicisid isna vitaminka loo yaqaano vitamin C. marka vitamin C laga hadlayo dadka intooda badan majority
boqolkiiba 95 waxay yaqaaniin orange juice-ka, laakiin geedka loo yaqaano barbarooniga ah ee yalowga barbarooni ah yalowga ah aynu naqaano wuxuu leeyahay vitamin C 3 jibaar. hadda hadalkayga eega 3 jibaar inta ku jirta orange juice-ka ayuu leeyahay. jawaafada ka mid ah, barsliga ama baqdooniska geedka loo yaqaano, faraawilada ka mid ah, kiwida ka mid ah, iyo sidaynu naqaano burtuqaalka iyo liin dhanaanta. okay, intaasiba waxay rafacdaa pH-ka. okay, pH-ka marka virus corona pH-kiisa la eegay wuxuu u dhaxayaa 5.5 iyo ilaa 8.5. macnaha haddii uu jirku ka kaco dhiigga wasadkiisa dhiigu haddii uu ka kaco 8.5 ka hadduu ka kaco oo uu noqdo xumuudadiisu ay ka yaraato 8.5, viruska loo yaqaano coronaviruska jirku waa ka adkaan karaa, waa dili karaa. virusyada dhan buu dili karaa haddii uu pH-kaaga kaco. pH-kaaguna wuxuu ku kacaa cuntooyinka aan idiin sheegay inaad ilaalisid oo aad cuntid. waxaan usii gudbayaa markaa waxyaabaha ku lug leh inuu jirku macnaha uu difaaciisu adkaado, manacadiisu adkaado. intaa kale markaan ka imaado, pH-kiisu hadduu kaco jirka manacadiisu way kacdaa, waana isdifaaci karaa. laakiin waxa leadershipka ah vitaminka loo yaqaano vitamin D vitaminka sidaynu u naqaano ama dadku ay u yaqaanaan, ninkaan aqoonba haddeena aynu leenahay ka faa'iido macluumaadka. wuxuu ku jiraa haragga bani aadamka hoostiisa, mana dhaqaaqo haddaanay qofka qoraxi ku dhicin. way jiraan cuntooyinka aan soo sheegay inay ku jiro qayb ka mid ah inay la socoto vitamin D, laakiin ka haragga hoostiisa ku jira ee qoraxdu ay kiciso jirku ka faa'iido, ilaa qoraxdu ku dhacdo jirku kama faa'iido. ayaan doonayaa inaan in yar ka hadlo, isaga oo muhiimad weyn ku leh. weliba buxuustii ugu dambeysay ee la yidhi dadka ku dhimanaya viruska coronada waa dad uu vitamin D-goodu uu yahay low ama uuba eber yahay. okay, vitamin D si uu jirku uga faa'iido waa inuu cadceedda isu dhiga. okay, wax yar baan ku noqonayaa halkaa. cadceedda soomaalidii hore waxaynu ogeyn marka qofku ku dhacdo malaariyada ama cudurkii loo yaqiinay duumada, haddii jaraale waxay dhigi jiray cadceedda loo dhigi jiray. waxaynuna ognahay cilaaqada ku dhaxaysa virus corona iyo malaariyada waa isku nooc, waa isku dawo. chloroquine-ka waa loo isticmaalaa. sidoo kale cadceedda soo dhacda sida duumada oo kale, qofka viral corona qofka uu hayo waxa weeye waa inuu cadceedda loo dhigaa. okay, cadceedda goorma loo dhiga? maaha inaad duhur qofka cadceed fadhiisto oo ay ku dhacdo shock, bahashan sun shock. waa inuu loo dhigaa waxa loo yaqaano labada cirguduud. labada cirguduud waa maxay? waa marka ay qoraxdu dhacayso saacad iyo badh ka hor, iyo marka ay soo baxayso, markay soo baxdo saacad iyo badh kadib. labada cirguduud weeye qofku inuu qoraxda sun cadceedeeda isu dhigo. vitamin D sidaasuu jirkiisa u kacaa una difaaca, isagana liidargelaya. vitamin D marka uu ka dhaqaaqo jirka hoostiisa wuxuu dhaqaaqaa, jirku wuxuu ku daraa hydrogen iyo oxygen. waa tagaa beerku tagaa, beerka markuu tagana beerku haddana wuxuu ku daraa hydrogen and oxygen. wuxuu noqdaa markaa systemka ugu fiican ee uu diyaar garoobo jirku inuu ka faa'iido, oo uu liidargareeyo vitamin C-ga iyo vitaminada kale ee jiinka iyo B12-ka waa inuu liidgarayaa. marka isla markiiba jirku difaaca jirka ayuu sameeyaa oo wuxuu ka hortagaa cudurrada oo dhan ee jirka difaaca. marka sidaa darteed innaga oo kasoo gudubnay xalqadihii hore aynu ka hadlaynay cilaajka coronaviruska iyo sida looga difaaco, waxaa fiican inaynu isweydiino sidee baan uga badbaadi karaa. intaa aan soo maray, dadku hadduu ku dhacay iyo haddaanu ku dhicinba waxaa waajib ku ah oo khasab ku ah oo ilsaami ku ah inay isticmaalaan cuntooyinka aan soo sheegay. dariiqada aan u sheegayna qofka haddii uu ku dhaco, inagoo xulbadda iyo malmalka iyo sinjibiisha la karinayo iyo ta la cunayo, xulbadda qalina la cunayo ilaashanayna. haddana waxaan doonayaa qofku hadduu baxo sidee baan u avood garayaa inaanan qaadan infectionka, inaanan cudurka iisoo gudbin.
hadduu ii soo gudbayna sidee baan isla markiiba isaga saari karaa intaanu jirka ku filan. Okay, cudurku qofku marka uu qaado maalinta ugu horeysa uu qaado 48 hours wuxuu ku jiraa sanka, halkaas sanqaraarada uu fadhiistaa, waayo wuxuu ku kobcaa meesha qabow. marka waxaa la yidhi sida buxuusta lagu sheegay virusku 27 degree wixii ka sarreeya waa ku dhintaa. Okay, waan baxay anigu for example, ama qofka caadiga wuu baxay, qof cudur qaba buu salaamay, he got the infection, wuu qaatay viruskii, wuu ku dhacay, gurigiisu kusoo noqday. isla mar kasta oo aad guriga kusoo noqotid oo aad timaadid hoygaaga waxaa lagaaga baahan yahay wax ka samayn markaad farahaaga maydhatid ee aad isnadiifisid inaad biyo karisid, aad ku dartid liin dhanaan, gogoysid liin dhanaan gogoysid iyo sanjibiil, oo aad uumiga aad sanka iyo afkaba ka qaatid, sidaa uga qaatid sanka iyo afka muddo daqiiqada. haddii uu viruskii aad infection lacalla aad soo qaaday isla daqiiqadaaba waa dhimanaya. haddii aad shalay soo qaaday oo aanay 48 saacadood kusoo wareegin isla markiiba waa dhimanaya. haddii uu qofku xanuunsanayo oo uu qabo oo cudurkaa uu qaaday, waxaan 95% inuu kaga badbaado oo uu ku dhinto ama aanu replicationkiisa samaynin. replicationku waa inaanu tiro badan, inaanu copies garayn oo aanu virusku ku badan jidhka, oo uu joojiyo inaad biyaha kulul ee sinjibiisha iyo liin dhanaanta malmal haddii la hayo lagu daro, dhegayaraha haddii la hayo lagu daro, toon haddii la hayo lagu daro. biyaha kulul qofka xanuunsanaya marka uu sanka iyo afkaba ka qaato neefta waa u dabciyaa, viruskana waa dilaa. intaa waa inaanu isgaadhsiinaa walaalayaal. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. mar walba xalqad walba oo aan duubo waxaan jeclahay inaan macluumaad cusub xalqadda dhammaadkeeda aan idin siiyo. maanta xalqadda maanta aan ugu talagalay viruska macluumaadda cusub aan idinku kordhinaya insha allahu tacaala waxay tahay dadka qoolonka iyo gaasaska qaba ee had iyo jeer ale ka dacwooda. maalin dhaweyto waxaan ka soo qaaday farmasiga daawo gaaska qoolonka ama qabsinka daaweysa, waan akhriyey contentska iyo waxay ka koobantay baan akhriyey. waxaan ogaaday inay ka kooban tahay dhuxul. waa dhuxul keliya. waxaan soo xasuustay soomaalidu waddankeeni markaynu joognay hadhuubka waynu culi jiray, culayga waxa la yidhaahdo waxa loo culi jiray iyo sababta loo culi jiray. marka aad caanaha culayga le aad cabtid caafimaadkeed ka qaadi jirtid ayaan xasuustay. macnaha waa cilmi waddankeena yaalla laakiin aynaan inagu aqoonin. dhuxushu waxaa loogu culaa xoolaha, waxaa loogu culaa inuu daaweeyo qoolonka iyo qaasaadka caloosha. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.